ولا يشتغل أنا حبشة ورام بين قوان قبني لها قبلها ولا مكون إلا مدي إلا لما مكون تبيس ديدي كل وقت تبين للسنة تبين للسنة يجي تكون وراك جري ولا لو كوفسي لا دل حتى ولا بلا ولا يمجفها تقول مواد ذي إلا بيسك وشانا دور كسلك هاي سؤال وان ميلين كدرن ولا واي اكس كنترول أو حمرة إلا اللي هو اكس كنترول إلا هذا برا هو جدكاس برا وإيو إن ده يشبه له غصة يجي تكون بيدوية حمر إن ده يوم لما ده جديد تذكير لك نماي ولني شاعرنا كل واد حالسان وبداية كم إتضاء بقول توميتو وقفة لجديد باللي ولا نجلاس بقوليه فرتي إلا وقفة نجلاس يوم كيش وقفة لجديد الجديد إلهي قوسي ده كان ساعة لنا ما هي اللي يقوم على بناتن اللي يقص ضوي يد مامور كدولة دي إنشاء ده كده قوة ولا لون عينك ملتري أو لهدجي إكس كنترول إلا اللي يجدني ده كاسات ده كان لما يقول كوفسي كودا لا كودا بابا كودا ساعة ما يلا هاي جدي جالي كشاعر ولا بلانا أنت اللي ودي تدور بلا هايزري يلا هدي دلكي كتب بوي ولا لقصوب بين لكن لا راي مجاشي محمد إبراهيم عبد المرشال لما ولا الكان أو وسوق بياسين الإيد يلا هدي لي صدق حب الله كنوي صدق كاس ولا واي فصدق حب الله كنوي ورم إلك اللي قبل تدرس ور إلهي قوم بين إلهي قوم صدق ديوسني ما يفضل maalin la soo dhaafay inan u dhalatay gobolada koonfur galbeed reer Baydhabo muddo maalmo ay ku haysteen niman heybtooda aan la ogeyn wadada dheer oo isku xirta magaalada Muqdisho iyo Buurxakaba iyadoo markii dambana Ilaahay uu ka soo badbaadiyay si nabadgelyada ay reerkeeda u timid iyadoo aan ognahay in shilal badan ay ka dhaceen wadadaas shacab badan dhibaatooyin loo geystay markaan xuraaminay dhagadhagayna waxay noo sheegeen shacabka wadada ku safraanaya ahayn ururka hukuumadka ummadda Soomaaliyeed al-shabaab dadka dhibaatooyinkaas faraha badan u geysanayo ay yihiin maleeshiyaad kala duwan oo huwan dareeska ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo noocyo badan leh inay dhibaatooyinkaas ku hayaan wadadana ay qarqaba u saaran tahay in guud ahaan adeegii ay bulshada u haysay shacabka reer koonfur galbeed Soomaaliya oo guud ahaanba Baydhabo iyo magaalooyinka kaleba u kala safraya inay qaati ka taagan yihiin oo garabka biligga u dhigtay caqdi dibulka Soomaaliya oo lagu laaynayo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Shabeellaha Hoose waa ka soo horjeednaa waa aragtaan maanta meesha lagu laayay waxaa soo dhibaataa ka dhacayo xasuuqa taasoo lagu laaynayo calanka jamhuuriyadda Soomaaliya runta uu ku dhegsan yahay ciidamada beeleedyada waxaan leenahay ha laga tago masaakiinta la laaynayo haween iyo maalin cidka hadashay male dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed weligood kama hadlin waxa meesha ka dhacaya oo haween iyo maalin xasuuq ka dhacaya weligood kama hadlin dowladda federaalka iyo tan koonfur galbeed midna ummadda annaga ka dhalanay annaga u hadlayna ummadda annaga ka dhalanay annaga u hadlayna hala joojiyo maantida la laaynaaya umala duuxnimada hala joojiyo ciidamada beeleedyada tuutaha iyo calanka Soomaaliyeed loo soo labisay ee qabiilka ah ee laaynaaya dadkeena قال كمنيهن